waxaanu gelaynaa xalqadii labaad. xalqada labaad waxay ku saabsan tahay waxa loo yaqaano aqoontu waxay kugu hogaamisaa inaad Ilaahay rumayso. run ahaantii waxaanu soo qaadanaynaa 3 sheeko ama qiso aad u gaagaaban oo ku saabsan dhakhaatiirta aadka looga yaqaan caalamka. niman dhakhaatiir aad caalamka looga yaqaano iyo aakhirkii halka ku dambeeyeen. qisada koowaad haddayna soo qaadano waxay ku saabsan tahay dhakhtarka caanka ah ee Faransiiska ah ee la yaqaano Maurice Bucaille. Maurice Bucaille waa dhakhtar Faransiis ah. waa dhakhaatiirta ugu caansan xagga qalliinka. waxa dhacay 1981 ayaa dawladda Faransiisku waxay ka dalbatay dalka Masar inay runtii u keenaan qalfoofkii Fircawn Ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala inuu qarqiyay qalfoofkiisii inay u keenaan si ay ugu sameeyaan baaritaan cilmiyeed oo ay bal u ogaadaan qalfoofkaas iyo waxa uu ku sugan yahay iyo sida u dhintayba. markii dawladda Masar ay u gudbisay qalfoofkii Fircawn dalka Faransiiska ayaa waxa qalfoofkaas ama meydka lagu soo dhaweeyay si aad u qiimo badan. madaarka ayaana lagu qaabilay. markii la soo dhaweeyay ka bacdi ayaa waxa loo gudbiyay meeshii loogu talagalay in research-ka lagu sameeyo ee lagu baaro. waxa isu tagay aqoon-yahanadii ku takhasusay baaritaanka qalfoofka loogu talagalay iyo raggii dhakhaatiirta aadka ugu caansanaa waqtigaas. dhakhaatiirtaasi runtii hawsha fulinayay waxa gudoomiye u ahaa Maurice Bucaille oo ah runtii dhakhtar ku caan ah qalliinka dalka Faransiiska. waxa dhacay waxa la bilaaway hawshii in la baaro dhammaan arrimaha khuseeya qalfoofkan Fircawn. markii la baaray ayaa waxa dhacay Maurice Bucaille oo runtii dhakhtar ahaa isagoo aad u daneynay inuu ogaado maxaa dilay ama sideeba u dhintay ama maxaa sabab u ahaa inuu dhinto Fircawn. baaritaankiisa isagoo wada ayaa waxa dhacay habeennimadii waqti aad u dambeeya ayaa waxa uu ogaaday xaqiiqada uu ku dhintay Fircawn uu ku dhintay ama sababtu u dhintay waqtigaas uu ogaaday. oo sidoo uu ogaaday wuxuu baaritaan ku sameeyay qalfoofkii Fircawn. wuxuu ogaaday Fircawn cidiyihiisa hoose inay ku jiraan milixdii badda waxyaalo kamid inay ku jiraan buu arkay. markuu mikroskoobkii ku eegay oo baaritaanka ku sameeyay ayuu wuxuu ogaaday in waxyaalo kamid milixdii baddu inay ku jiraan faraha Fircawn. kadib wuxuu ogaaday maadaama milixdii baddu ay ku jirto faraha iyo cidiyaha Fircawn wuxuu ogaaday sababtu u dhintay inay ahayd inuu ku qarqoomay badda. Maurice Bucaille markuu ogaaday xaqiiqada ah inuu Fircawn ku dhintay qaraq waxa uu sheegay ragii la fadhiyay mid kamid ah. waxaan ku yiri waxaan rabaa ummadda inaan u sheego in Fircawn uu ku dhintay isagoo qarqoomay uu ku dhintay oo badda uu ku dhintay. ninkii la fadhiyay baa waxa uu ku yiri arinta la baadhayay arinta ku degdegin sababtu waxay tahay muslimiintu waxay sheegtaan inuu Fircawn uu ku dhintay isagoo qarqoomay inuu dhintay oo waxay rahan quraanka ayaga sheegay. Maurice Bucaille wuxuu uga jawaabay arintaasi suurtagal ma aha. sababtu waxay tahay buu yiri qalabkan aan wax ku baadhanay arintan aan ku ogaanay waxa la sameeyay oo waxa laga joogaa waqtigii la sameeyay 200 sano. muslimiintuna kitaabkoodu wuxuu soo degay 1400 ka hor buu soo degay. marka suurtagal ma aha muslimiintu qalabkan aanu haysano ee casriga ah waqtiga inay heysay suurtagal ma aha. qalabkana imku ma la helay waqtigaas muu jirin. marka suurtagal ma xaqiiqadahan aqoonta ku ogaaday aan baaritaanka ku ogaaday in muslimiintu ogaayeen ama quraankoodu uu sheegay 1400 sano ka hor inuu sheegay suurtagal ma aha. arintii isagoo aad u la yaaban Maurice Bucaille baaritaan buu sii sameeyay. injiil iyo tawraad ba uu baaray. wuxuu ogaaday wax badan inaanay ka sheegin arinta oo ay ka aamuseen kaliya ay sheegeen inuu Fircawn uu dhintay laakiin sababtu u dhintay iyo qaabku u dhintay kama sheekeen. waxa dhacay muddo ka bacdi ayaa safar wuxuu ugu baxay Maurice Bucaille dhakhtarkaasi
faransiiska ay wuxuu safar ugu baxay dalka sacuudiga isagoo ka qayb galay shir caalami ah oo lagu talagalay dhakhaatiirta arrimaha dhakhtarnimada wixii caafimaadka wixii ku takhasusa la xiriira in runtii lagu soo bandhigo wixii research laga sameeyay shirkaasi markuu ka qayb galay ayaa Maurice Bucaille shirka waxa uu ka sheegay baaritaankii iyo aqoontii uu ogaaday wuxuu ka sheegay inuu ogaaday oo discovery uu ku sameeyay inuu fircoon ku dhintay qaraq inuu ku dhintay inuu badda ku dhintay arinta inuu ogaado baaritaan uu ku ogaaday ayuu u sheegay dadkii shirka fadhiyay kadibna nin dadkii shirka ka qayb galay kamid ahaa ayaa waxa uu ku yiri quraanka ayaa arinta sheegaya aayadiiba u soo qabtay sheegaysay aayad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku sheegay inuu fircoon uu qaraq ku dhintay ayuu soo qabtay ee ahayd al-yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka aaya wa inna kathiran min an-nas an ayatina laghafilun aayada markuu akhriyay ee uu turjumay uu xamil kari waay aad bay arinta la yaab ugu noqotay aad bay culays ugu noqotay isagoo aad u la yaaban ayuu markiiba yiri aamantu bi hada al-qur'an qur'aan kaas waa rumeeyay diintan waa rumeeyay waana xaq weeyaan halkii ayuu Maurice Bucaille oo aha dhakhaatiirtii ugu caansanaa dalka Faransiiska qalliinka uu ku islaamay isagoo markii dambana buug qoray aad u cajiib badan oo la yiraahdo islaamka iyo tawraad iyo injiil oo la barbar dhigaya cilmiga buug noocaas ayuu qoray buugiisu wuxuu noqday buug aad u caalamiya oo intaas oo luqad loo turjumo buugis caalamka dhan ku faafay wuxuu isbarbar dhigayaa islaamka iyo muxuu ahaayay in Christianity-ga iyo Yahuudda iyo diimahoodu mid kastaaba wuxuu ka leeyahay aqoonta iyo cilmiga maxay science-ka waxa uu ka leeyahay waxa uu soo saarayaa cilmiga science-ka ee saxda ah ee la xaqiijiyay iyo islaamku inay iswaafaqsan yihiin ayuu ku soo saaraya research-kiisa ama buugiisaas uu ku sheegaya waxaanu aad ugu sheegaya oo ku tilmaamaya sida uu la yaabay quraankii soo degay 1400 sano ka hor inuu maanta uu sheegayo runtii researchada aqoonta la gaaray casriga ah halkiis ugu dambeysay inuu quraanku tilmaamayo arintaas aad u tilmaamaya marka runtii sidaas ayuu markaa ku islaamay Maurice Bucaille qisada labaad ee idana rabnayna soo qadana waxa weeyaan qisadan runtii waxa ka sheekeeyay sheekh caanka ah Abdulmajid Zandani oo runtii isagu ah sheekh ku takhasusay culumtan muxuu ahay ijaaz cilmiga aad ugu takhasusay wuxuu sheekhu aad uga sheekeynayaa runtii nin aad u la yaab badan wuxuu ka sheekeynayaa Keith Moore buu ka sheekeynayaa Keith Moore waayo waxa la yiraahdaa waa number 1 caalamka ninka ugu aqoonta badan leh embryology-ga aqoonta ku saabsan qofka yar ilmuhu sida u koro aloosh dhexdiisa ugu karo aqoonta ku saabsan waa caalimka koowaad ee caalamka caalimkaas aad ba caalamka looga yaqaan Keith Moore baa la yiraahdaa waxa uu runtii macallin u ka yahay jaamacadda Toronto ee Canada ayuu macallin ka yahay waxa uu tilmaamayaa Abdulmajid Zandani isaga ayaan jecel qisada inuu inooga sheekeeyo iyo arinta dhaxmartay isaga iyo maxay Keith Moore waxa uu leeyahay waxa raadiyay buu yiri buug laga qoray embryology-ga waxaan la xiriiray yiri dalka Ingiriiska waxaan ku yiri waxaad ii soo sheegtaan buugga ugu horeeya ee number 1 ka ah ee ka sheekeynaya culumta ku tacalluqda embryology-ga waxa ii soo direen buu yiri buugga uu qoray Keith Moore haddana wuxuu yiri waxaan la xiriiray dalka maxay Germany waxaan ku yiri waxaad ii soo dirtaan buugga ugu horeeya ee runtii loo noqdo ee ka sheekeynaya embryology-ga iyo qofka yar ilmuhu sidoo ugu karo maxay caloosha hooyadii waxa ii soo qoreen buu yiri buugga oo qoray Keith Moore oo luqadooda ku qoran waan yaabay buu yiri wuxuu waxaan daawaday buu yiri 4 film baan daawaday waxaan ogaaday buu yiri oo ku saabsan embryology-ga ku saabsan ayaan daawaday dhammaantood wax marjac ka dhiganayaan dhammaantood waxay ka soo qaadanayaan macluumaadka sheegayaan Keith Moore ay ka soo qaadanayaan waan yaabay buu yiri waxaan la yaabay buu yiri ninkan caalamka oo dhan ay isku waafaqsan yihiin inuu yahay number 1 cilmiga ku la xiriira ilmaha iyo sida uu koro la xiriira wuxuu waxaan weydiinay muxuu ahaayeen aqoon aad u dheer u leh fiilkan embryology-ga oo Ahmed Hijazi la yiraahdo oo jaamacadda wax ka dhiga
waxaan ku yiri ninkaasi intaasoo meelood baan la xiriiray intuba waxay ugu soo jawaabeen ninkaasi buugiis wuxuu ugu jawaabay wiil ninkaasina oo isagoo runtii ku takhasusay cilmiga embryology-ga wuxuu ugu jawaabay ninkaasi waa aabaha cilmiga ilmaha iyo sidoo u koro waa qofka kaliya loo noqdo waa qofka ugu dambeeya caalamka wuxuu hadaba waxaan bilaaway ninkaas inuu heli lahaa waxaan ka qayb galay buu shirkii lixaad ee dhakhaatiirta caalamka ee lagu qabtay dalka Sacuudiga ayaan ka qayb galay shirkaasna waxa yimi nin madaxa oo safaaradda Sacuudiga ka shaqeeya dalka Canada ninkii baa la xiriir ninkii baa la hadlay waxaan ku yiri waxaan u baahanahay inuu halkan imaado Sacuudiga oo imaado aanu la kulanno ninka loo yaqaan Keith Moore oo nin runtii cilmiga muxuu ahaa embryology-ga aad ugu caan wuxuu ugu jawaabay ninkaaniga keenaya ninkii markuu Sacuudiga ku noqday Canada ninkii baa wada xiriireen ninkii baa xiriirna la soo wada siiyay Keith Moore iyo aniga Abdulmajid Zandani baa ka sheekeynaaye ayaa waxa uu leeyahay xiriir baan wada sameynay kadib waxaan ku qanacnay Sacuudiga inuu imaado Sacuudiga ayuu yimi Sacuudiga markuu yimi ayaan la fadhiisanay waxaan ku nidhi waxaan ku haynaa 180 su'aalood oo ku saabsan cilmiga ilmaha iyo sida uu koro ku saabsan 80 su'aalood markaan weydiinay ee bartaka aanu marinayno ayuu jooga buu yiri wuxuu su'aalahaadii weydiinaysaan qaar waxa weeyaan jawaabtooda waxa garanaya ardayga uulada ah ba garanaya su'aalahaadii weydiinaysaan qaar kalena waxa weeyaan hadaad weydiisaan caalimka ugu weyn ee fiilkana ma garan karo يعني سؤالها قارنا وحويا بقول سؤال عد كساجرنا تقولوا ده جرنا يسوع سؤالها قارنا أذي جودة وحوي قار هذا حدو مال الأجادة بقى قارنا حد الله وضع إن الأجادة تكنولوجيا إياه علوم عصر حتى يبردان كي هاي وطا سؤال هذا ودين إنسان مرك أركينو محية أركينو واسدي سؤالي هنا قارنا وتشراسين قارنا أذي جودة آد بنو الله يابنا وحيوجد جوابين ونكون ربو يري سؤالها نكويدين إنه قاروا حويه وحي كسب سيهن ميكروسكوب كأنت عن للسماينين وحي كهريي أي سؤال كسب سيهن سؤالها قاروا وحي كسب سيهن ميكروسكوب كمركي للسمايي علمي واحد بدن لجوء هذا وسؤال كسب سن سؤالها ميكروسكوب أنت عن للسماين كهر كسب سن وسؤال شرعسن sababtoo marka microscope lama sameyn oo wax badan baa runtii muxuu ahaayay de aan la ogeyn laakiin microscope markii la sameeyay waxa la ogaaday intaas oo aqoon fara badan waxa kale lagu jawaabay yiri microscope intii aan la sameynin waa waqtigu soo degay quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka nabi Ilaahay Muhammad lagu soo dejiyay waa markuu soo degay marka quraanka ayaa waxa uu runtii ka jawaabay su'aalo aad u fara badan oo ku saabsan waxa hadaan ku weydiinayno 8 su'aaladan ku weydiino quraanka ka soo dhax saarnay markaasaan u soo saarnay buu su'aalahi quraanku mid kasta soo jawaabaya ninku wuxuu u la yaabay buu yiri waxa ku dhacay wax la yaab badan oo yaab ku dhacay buu yaani quraanku inuu ka jawaabo masaa'il hadd la ogaaday يعني مسائل حد علمك عصرك وأجاذي أو بريتان لجو أجاذي أو أنت سنوزل الصوب بعدي إنه القرآن وكتشوابه أو كوني أفر بقول صار كور سود شيء لا يبي إلا نقط يسوي يا بنبو كل عضو هوتيل كيسي واحد شوكته واحد ما كان شوكتي حاس كيسي ولا سعوتي بعد شوكتي حاس كيسي بوق شيك وحنا ما كو واحد يجي يعلن إن سؤال ويديان كوساب صن علمك محاها قفك المها يصد أكره سؤاله ويدينا قرآن كذا كتشوب أنت سنة كهر ولبا حد وحيل أجاد علمت هذا أجاتي أي قرآن كسي شيء قبل يبغى واحد كتري أنا أقول أنت كام مقنع هل كان فريو كتاب القرآن كان فريو آيات كشيء كان يسا المها يصد أكره بن هلايبا وتاسع أنا هنكون مشغول سنة وحيل واحد عذابه يجي أدوق مد سؤالي ما كانوا لما يصيرناي وين نقدين بير دكتور كم مركون نقضي كيث مور ayaa waxaan ugu dhashay buu yiri haddana 40 su'aalood oo kala lagu soo kordhay oo runtii nagu soo dhacay oo ay noqotay inaan dib u weydiino xiriir baan la sameeynay waxaan ku niraniyo su'aal kala aanu haynaa waxaan rabnaa inaad noo timaado wuxuu noogu jawaabay waan idin imanaya leeysa sharti baa ku xiraya sharti baa idinku xiran waanu yaabnay shartigaas muxuu yahay wuxuu shartigaas waxa weeyaan inaan jeediyo muxaadaro public lecture waa inaan jeediyaa oo meel ka jeediya jaamacad oo ummadda isku timaada
inta markuu yiri waanu yaabnay buu yiri sababta waxaanu sinadii war malaha ninka dalkiisii markuu ku noqday ayaa la qabsaday oo leeyahay waa maxay waxaad ka sheegtay markaasuu rabaa inuu soo noqdo waxaanu wuxuu hore u sheegay uu buriyo waanu yaabnay buu yiri shakaagaasana galay buu yiri laakiin waxa dhacay buu yiri markuu soo noqday ee uu Sacuudiga noogu yimi ayaa wuxuu yiri waxaan galayaa public lecture waliba waxaan rabaa dad gaar ah inay ka soo qayb galaan markaas wuxuu sheegay dadka ka soo qayb galaya noocyada ay noqonayaan aqoonyahanka dhakhaatiirta macallimiinta dad xul ah ayuu ka soo qayb galaan waanu ka qabilnay buu yiri waxa uu noo sheegay ciwaanka muxaadaradu galayo ciwaanku muxaadaradu noo sheegay buu yiri markuu na tusay waanu yaabnay ma waana filanay ciwaanku waa maxay ciwaanku waxa weeyaan wuxuu ku saabsan yahay quraanka iyo sunnadu iyo sida isu waafaqsan yihiin runtii cilmiga casriga ah ee la xiriira ilmaha iyo koritaankiisa si isu waafaqsan yihiin ee muxaadarada ku saabsanta muxaadarada ciwaan wuxuu ka dhigay quraanka iyo sunnadu waxay sheegeen iyo inay isu waafaqsan yihiin cilmiga xaadirka ah ee casriga wuxuu ka sheegay ilmaha iyo sidoo koro muxaadarada la soo dhajiyay waa laga soo qayb galay ummad ilaahay baa ka soo qayb gashay halkiibu ka sheekeeyay qodob uu taabtay quraanku wax kasta uu sheegay wuxuu tilmaamay cilmi xadiisna hadda inuu sheegay uu isbarbar dhigay marka ayad quraanku sida uu sheegayso iyo cilmiga casriga sida uu sheegay isbarbar dhigay iyagoo iswaafaqsan yihiin aakhirkiibu ku soo gabagabeeyay muxaadaradii markuu dhameeyay wuxuu ku soo gabagabeeyay waxaan yaqiinsanahay buu yiri inuu muxuu ahaayay kitaabkani xaq ilaahay ka yimi محمد رسول الله يبنى قنسنا بير وما تحقق ذا وشيء علم عصر جاه وقرآن كشيء جاه وحقائق إمرك الأجاذي علم عصر الأجاذي مركب ملك لك ما إيمان محمد ملك لك مو كين إلهي بو سبحانه وتعالى حق سككينه إلهينا واك كون كان أبوري أنت سكسو جبي سيد بمحاضرة كل مات مركب رنتي قصة أصلا واحد المام يسا markii daba buug qoray baa wuxuu ku daray dhamaan aayadkii quraanka ee sheegay ilmaha iyo sida uu karo ayuu raaciyay oo meel kasta uu kaga daray oo buugiisa waxaad arkaysaa intiiba uu isku daray cilmiga casriga wuxuu ka yiri ilmaha iyo sida uu karo wuxuu raacanaya haddana quraanku wuxuu ka yimi sunnada waxa ay ka tiri taa qisada saddexaad ee ku soo khatiminaa waxa ay tahay waa qiso runtii ku saabsan nin kale isagoo dhakhtar oo aad u caan ah دكتورك هو عميدك كلية جامعة كتالة درك تايلاند رهانتي نكان استجنا وحلا كل ماي شيخ زنداني بالا كل ماي وحر ما كان نكان لا كلنا دكتورك واحد عذيب يري سؤالا ودينا كوسابسن إن المها يصد أكره كوسابسن كذب وحنا وجود شباب يري حنا وجود شباب يري anigaba kitaabka buudhisamka kitaabka aanu aaminsanahay waxbuu ka sheegay ilmaha iyo sidoo koro kadib waxaan ku leeyahay Sheekh Zandani bal waayahay nookan uu noqday birdalkiisa ku noqday muddo markuu joogay baa wuxuu yiri jaamacadda Malik Abdul Aziz baa u yeedhay soo supervisor oo noqdo researchada qaar kamid ah jaamacadii biimi wala kulanay buu yiri ma kaanu la kulannay waxaan ku leeyahay diintii buudhiinsa kamid noo sheegaysay miyaa wax ka sheegtay maxaa ilmaha sidoo karo wuxuu riniyo waan baarayo waxaan ogaaday waxba inaan ka sheegin inta markuu noo sheegayba waxaan sameeynay biyiri in qoraalkii uu sameeyay Keith Moore ee ku saabsanaa ilmaha sidoo karo ayaanu siinay biyiri intaana siinay waxaan ku nidhi Keith Moore ma taqaana markaas wuxuu loogu jawaabay si aanan uu qon waanin waa culimada ugu caansan علمي embryology iyo ilmaha iyo sida u koro waa rag culimada caalamka ugu caansan qoraalkiisii baan u siinay oo ku sheegayo Keith Moore quraanka waxa ku sugan iyo sunnadu iyo inay iswaafaqsan yihiin culumtan casriga maanta tilmaamaysa ilmaha sida u koro aad buu yaabiyo arinta markuu aad u la yaabay aanu siinay ay su'aalo kale aan weydiin waxaanu ku niri waxaad ka warantaa jidhkan bini'aadanka hadii la gubo oo aad loo gubo sidoo noqon karaa wuxuu jidhka bini'aadamka marka la gubo aad loo gubo gunta loo gaadho xanuunka qofku ka tagaya oo jidhkan dusha ee qofka saaran ayaa qofka xanuunka dareensiinaya jidhkan hadduu dhamaado xanuunkii qofka ma dareemayo
waana wuxuu arin cilmiyo oo baaritaan aan ku ogaana arintaas waxaanu dhiri bal waxaad ka waranta quraanka arinta haduu sheegay waay quraan ay sheegtayba in alladheena kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab ilaahay waa ka sheegay kuwa gaalada ah maalinta yawm al-qiyaamaha marka la cadaabayo cadaabka marka la galiyo jidhkooda ma ku dhamaado haddana jidh kale lagu bedelaya jidh kale si ay markaas cadaabka u dhadhamiyaan marka waxay ku yiraahdeen quraankayga sheegaya quraankaygu wuxuu tilmaamay bay yiraahdeen jidhkan sare markuu qofka la cadaabo u dhamaado qofka xanuunka uu ka tagaya haddaba si uu xanuunku joogto ugu noqdo dadka gaalada iyo qiyaamaha ilaahay wuxuu sheegay jidh kale haddana inuu ku sameeynayo si xanuunka ay u dareemaan aad buu la yaabay biir arintaasi fajicisa ku noqoto yaani wax imku la ogaaday oo maanta irbad hadii lagu mudo irbada marka lagu mudo jirkaaga sare markii ku galiso marka ugu horeysa wax xanuun leeyahay marka hore lagu wado xanuunku wax badan dareemaysid sababtoo xanuunku wuxuu saaray jirkan hore u saaray arinta aad buu la yaabay runtii dhakhtarka Thailandiga aad buu la yaabay kadib waxa uu runtii ay weydiiyeen waxa ku yiraahdeen ma laga yaabaa arintan aanu ku sheegino inuu Muhammad runtii meel kale ka keenay wuxuu aanu garan maaye waxaad ii sheegtaan Muhammad halkuu ka keenay arintan cilmigan aad ii sheegsan halkuu ka keenay waxa ugu jawaabeen wuxuu ka keenay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa runtii u sheegay arintii baan u sii sharaxnay biir inta ka bacdi wuxuu yiri Allahumma salli ala Muhammad wadikiisa ku noqday wadikiisa markuu ku noqday ayuu wuxuu muhaadaraad ka galay arimihii aan ka wada hadalay ee ilmaha iyo sida u kor ku saabsan muhaadaraad buu ka galay shan kamid dadku muhaadaraadka u galay waaba islaameen wuxuu soo noqday buu yiri shirki sideedaad ee ka dhacay Sacuudiga ku saabsanaa muxuu arrimaha caafimaadka ayuu ka soo qayb galay shirki markuu ka soo qayb galay ayaa aad wuxuu dhageystay doodihii ku saabsanaa in culumta casriga ah iyo quraanka iyo sunnadu si ay isu waafaqsan yihiin aakhirkii markii uu dhamaaday shirki dhamaaday ayuu istaagay markaas wuxuu yiri anigu run ahaantii dhowr sano waxaan baaraayay arimaha quraanka iyo culumta casriga ah waxaanan ogaaday yaqiin ahaan inuu Muhammad rasuulka Ilaahay yahay waxana halkan ka qirayaa buu yiri ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasuulullah halkii ayuu ku islaamay oo diinta islaamka ku qaatay waa dhakhtarkii Thailandiga ahaa ee aad runtii loogu yaqaan culumta embryology-ga iyo anatomy-ga ruuxantii qisaska aynu sheegayna waxay tilmaamayaan oo muhiimadooda ay tahay lambar 1 waxa ay tilmaamayaan diintan Ilaahay inay xaq ay tahay tilmaamayaan diintan Ilaahay in xaq ay tahay ay tilmaamayaan sababtu waxa ay tahay laba aayadood buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina siiya laba aayadood aayadka qaar waynu akhriyayna oo waa quraanka iyo sunnada iyo weeyaan aayadka qaarna waynu arkaynaa oo waa kownkan iyo samadan iyo arladan iyo inaga laftigeena waa aayadka Ilaahay la arkayo labada aayadoodba qofku hadduu u fiirsado waxay keensanaysaa inuu runtii islaamo oo diinta islaamka u qaato daas waaba dadka soo islaama labada midumay ku soo islaamayaan marka labadaasina waxa weeyaan markaas waa isku mid weeyaan isma khilaafi karaan aayadkii quraanka Ilaahay wuxuu ku sheegay iyo kownku isma khilaafi karaan sababtaan isku khilaafeen waa maxay masdar kaliya ka wada iimaada hal meel bay ka soo baxeen Ilaahay samadanna isaga abuuray quraankana isaga soo deji sunnadana isaga nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku soo deji marka isma khilaafi karaan qodobka labaad ee muhiimku waxay tahay aqoontu waxa la yiraahdaa culumta waxa la yiraahdaa aakhirka qofka waxa u horseedaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeeyo aqoonta dhabta qofku ku barto oo uu dhex galo si xor ah u dhex galo oo maskax furan waxay keensanaysaa aakhirka inuu islaamo oo diinta xaq ah u raaco bay keensanaysaa waxa kale oo qisaskan ay tilmaamayaan oo idan muhiim ah sayniska waxa la yiraahdaa sayniska xaqiiqada ku qotoma ee laabka la galiyay ma nadariyaadka saynisku wuxuu leeyahay nadariyaad buu leeyahay theory buu leeyahay theories-ku been iyo runta way noqon karaan theories-ku waa intaan laabka la gelin xaqiiqo aanay noqon laakiin science-ka waxa la yiraahdaa marka laabka la geliyo oo xaqiiqo noqdaan shaki aan lahayn way iswaafaqayaan iyo quraanka sunnada isma khilaafayaan laakiin inta nadariyad yahay science-ku ee wali laab aan la gelin xaqiiqo rasmi ah aanu noqon
waxa laga yaabaa inaanu wali gaarin xad runtii la oran karo waafaqaya sunnada saadarta isma khilaafi karaan xaqiiqada cilmiga ah ee la cadeeyay ee sugan iyo isma khilaafi karaan xaqiiqada quraaniga ah ee iyaduna cadi isma khilaafi karaan waxa kale oo qodob aad u muhiim ah oo qodobka raacaya ilaahay subhanahu wa ta'ala sida culumta science-ku ay u waafaqsan tahay quraanka u waafaqsan tahay ay koonkan u abuuray quraanku soo dejiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kala soo dejiyay dhammaan nolosha bini aadamka qayb kasta ka kooban tahayba ilaahay wuxuu tilmaamay waxa ku hagaagayso marka waxa ay ku hagaagayso ilaahay baa tilmaamay marka hadii aad qaadato waxay noqonaysaa noloshaadu inay hagaagto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay oo cadeey sida loo noolaanayo bulshada sida u noolaanayso akhlaaqda bulshadu cadeey waxa kale oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu cadeey sida la isu dhaq sida la isu xukumayo sida la isu xukumayna ilaahay subhanahu wa ta'ala cadeey marka waxaas oo dhan waa xaqaa'iq iyagoo jira oo runtii ay tahay sida u rumaysantahay inay ilaahay samada abuuray oo ilaahay qofka samadan abuuray oo ilaahay uu koon abuuray dhulka sida u rumaysan tahay waa inaad u rumaysaa ilaahay xukunkiisuna inuu xukunka saxda oo kaliya oo xukun kasto ka soo harayna oo baadil noqonayo taasina waa qodob aad u muhiim ah daawada waxaan ku soo gabagabeynayna waxa runtii loo baahan yahay in baaritaano badan la sameeyo aqoonta hadda leena waa la ogaaday waqti bay qaadatay waqti dheer ba baaritaanka la soo sameeyay laakiin se inaga quraanka ba wax badan sheegay quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagal book of science inuu noqdo book science quraanku maaha laakiin se waxaalaha aayaadka ku sugan ee ilaahay ku tilmaamay koonka waxa loogu talagalay inaad ku cibra qaadato oo ilaahay ku rumayso oo ilaahay ugu cibaadaysto loogu talagalay marka daawada waxaan ku soo gabagabeynayna hadalkeenan casharkeenan maanta in qofka haduu u koorgalo quraanka iyo ahadiisa saxiixa haduu u koorgalo inuu ogaanayo xaqiiqada dhabta ah uu ogaanayo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته